soo dhawow magacaygu waa Ibrahim Adam waxaan idin soo gudbin doonaa sheeko xiiso leh waa shirkad duulimaad oo madaxdeeda ku amartay sida maaneejarada xafiisyada in ay raraan boorsooyinka rakaabka halkii ay hawshaas qaban lahaayeen shaqaalaha hoose ama porteriska inta aan muuqaalkan u guda gelin fadlan waxaan kaa codsanayaa in aad kanaalka ku soo birto oo aad subscribe saarto si aan 1k u gaaro muuqaalkan asxaabtaada la sii wadaag ama like garee waad qurux badan tahay mahadsan sheekadani xiisaha leh waxa ay ku saabsan tahay shirkad laga leeyahay dalka Australia in shaqaalaheeda sare ama maaneejarada in ay ka shaqeeyaan qaybta boorsooyinka haddaba maxaa sababay shirkadda diyaaradaha Australia ee Qantas ayaa ka dalbatay shaqaalaheeda ay xilka ama jagooyinka sare in ay u wareegaan qaybta boorsooyinka xilli ay shirkaddu wajahayso shaqaale yari aad u ba'an halka dad badani oo inaga naga mid ah ay iska shaqo la'aan yihiin adduunka noocaasiska madaxda u sarreysa ee shirkaddu waxa ay qaadi doonaan boorsooyinka rakaabka si ay diyaaradda u saaraan ugana soo dejiyaan halkii ay qaban jireen shaqaalaha hoose ee loo yaqaano porteriska madaxa howlgelinta ee shirkadda Qantas ayaa doonaya 100 qofood oo si daacadnimo ah uga shaqeysa garoomada Sydney iyo Melbourne oo kamid ah kuwa ugu waaweyn dalka Australia howlaha looga baahan yahay shaqaalahaas ayaa waxa kamid ah in ay dejinayaan boorsooyinka ama ay saarayaan diyaaradda iyo sidoo kale in ay wadayaan gaadiidka boorsooyinka qaada ee gudaha garoomada shirkadda Qantas ayaa aad ula daaladhacaysa in duulimaadyada ay dib u bilowdo kadib markii la furay xuduudaha Australia kiiska cudurka COVID-19 ee bulshada dhexdeeda ah iyo caqabadaha ka taagan helitaanka shaqaalaha ayaa si weyn u saameeyay howlaha shirkadeena ayuu yiri madaxa howlaha Qantas oo inta raaciyay in 200 oo kamid ah shaqaalaha sarsare loo wareejin doono shaqooyinka hoose sida in ay boorsooyinka jiidaan maamulayaasha iyo shaqaalaha haya xilalka sare ee shirkadda ayaa laga codsaday in ay toddobaadkii 3 ilaa 5 maalmood ay ka shaqeeyaan qaybta boorsooyinka oo kaliya qoraalka loo diray madaxda shirkadda Qantas ayaa lagu sheegay in dadka hawshaas qabanaya looga baahan yahay in ay dhaqaajin karaan boorsooyin culeyskoodu gaarayo 32 kilogram midkiiba aad ay u yar tahay inay ka badan tahay ayaa wanaagsanaan lahayd shirkadani ayaa kamid ah shirkadaha diyaaradaha ee saameynta aadka u weyn ay ka soo gaartay xuduudaha xiran ama xiritaanka duulimaadyada waxaana shirkadda ay fariisisay diyaarado badan sidoo kale tan iyo markii uu bilowday cudurka COVID-19 shirkadda Qantas ayaa shaqada ka joojisay kumanaan kamid ah shaqaalaheeda gaar ahaan kuwa u qaabilsan gudaha garoomada ka joojinta shaqaalahaasi ay shaqada ka joojiyeen ayaana u sababtay maanta dhibaatada ay ku jiraan waxaan u maleynayaa maamulayaal hayay xilal sare in ay aad uga xanuunsanayaan in ay ka shaqeeyaan shaqo marka hore ay ku amri jireen shaqaalahooda hoose in ay qabtaan bishii la soo dhaafay shirkadda ayaa raalgelin ka bixisay kadib markii ay rakaabka aad ugu eedeeyeen in laga lumiyay boorsooyinkooda xitaa shirkaddu waxay maraysaa in ay xakameyn weyso luminta boorsooyinka oo rakaabkii ay ka luminayaan boorsooyinkii anigoo haddeertan waxaan isweydiinayaa maadaama shirkaddaasi shaqaalaheeda sare ee ku amartay in ay iyagu qabtaan shaqadii ay qaban jireen shaqaalaha porteriska ma laga yaabaa shirkad ka shaqeysa Soomaaliya in shaqaalaheeda sare in ay ka shaqeeyaan shaqadaasi aad u hooseysa oo ay ka shaqeyn jireen porteriska ma laga yaabaa in ay ogolaan lahaayeen in ay ka shaqeeyaan sheekadaas xiisaha leh ayaan jeclaystay in aan idin soo gudbiyo waad ku mahadsan tahay waqtigaaga waxaa lagu talinayaa in aad kanaalkan ku soo biirto oo aad subscribe saarto sidoo kale muuqaalkan aad like garayso haddii aad awoodidna aad asxaabtaada la sii wadaagto sababo la xiriiro in aad caawiso milkiilaha kanaalka waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan ku raaxayso noloshaada waad qurux badan tahay peace naxariistu waa dhalad rabbi kugu dhaxaasay qofka aad mar dhugataa soo nasiibku ma dhaxo naxariistu waa dhalad rabbi kugu dhaxaasay qofka